وأي هجامين قلها مستقبل waxaan rabaa inaan u mahadceliyo mas-uuliyiinta iyo shacabka reer Jubbaland oo aan uga mahadceliyo sida qadarinta lahayd ee martidooda u ixtiraameen waxaan rabaa inaan uga cudur daaro laba dhinacba martida inaan uga cudur daaro wixii gaabisa ee idin soo gaadhay ee gurigiinna idinku soo gaadhay shacabka reer Kismaayo waxaan rabaa inaan cudurdaar uga bixiyo hadday jilad xidhnaayeen iyo hadday culays dareemeen inaan idhaahdo cudurdaar baan idinka siinaya intaa ka bacdi waxaan isleeyahay war meeshaan dhilnaa ma jiro war hadda Siciid uu yidhaha qolada iga dambaysaa sheegaysana ima muuqdo warku warqaduu ku yaalaa annaga waxaa nala jirtaan rabaa inaan idiin damaanad qaado waxaa warqaddaa ku qoran inaan fulinayna haddii ilaahay qodobka lixaad iyo ka toddobaad waa isdaba yaallaan haddii sidaa la weeli waayo sidaa la yeelaya waa la ogyahay waxaana dhubaa xasan sheekh laftigiisu u ogyahay inay soconayso intaan markaan ka tago warka warqadda ku yaalana aan intaan u sheego Soomaaliya marxalado badan bay soo martay shaki kama jiro culayska Soomaalida haystana waa midaan wada garanayno fariinta madaxweynahana waxaa ugu filan intii ay saaxiibaday sheegayeen isaga jawaabta u siisiinayay madaxweynuhu talada halkan ay kaa taalaa haddaad tayada maqlayso waxaan ku oran lahaa maalinta shirka la fulaya diyaarinta soo qaadatay inaad timaado oo sidaad waadhoweed nooga noqotay ayna kaa noqonin wax dhabaad la timaado waxaa lagu cudurdaarana iyo colays iyo cidnana uma qabno laakiin isu jawaab aad iyo aad baan kulligii idinka mahadcelinayaa mar raba hadalka inaan ku dheeraado inta keliya ee laga sugayo madashan iyo golaha mustaqbalku inta aan soo qoray inaan fulino weeye waxay Jubbaland mar walba diyaar u tahay gobol kastoo Soomaaliyeed inay dhigto waxaan diyaar u nahay wixii lagu heshiiyey si loo malmarina inaan ka shaqeyno waxaan diyaar u nahay haddii loo baahdo inaan firaaq dastuuri imanin inaanu ka shaqeyno maanta waxaan aniga iyo madaxweyne xasan sheekh ku kala maqanahay waxay ahayd niyo doorashada uma baahan sharciga uma baahan aan iska joogno dhan walba waan helaynaa wixii sidan iyo sidanba waa la helaya maxaad uga baahan tahay tii markaa aan shalay isaga ka soo diiday haddana si guud inaan usii ogolaada way adag tahay marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin qoraalka laydiin akhriyana waa fulinaynaa golahuna saasuu ku ballansan yahay inta kale ee siyaasiyiintaana waan u yeelaynaa madaxweyne xasan sheekh taladu kaama jirto dibad iyo dowlad kale kuwanay kaala jirtaa iyagay taladu ka dhaxaysa arrinta dagaalada shabaabka iyo daacish waxba kuma adka madaxweynaha ayaashaa ka hadlay odayaashaa ka soo hadlay culayska haystay waddanka waxaa ka jira iyo sida taageero la-aanta ay u jirto abaaraha ilaahayna inaan barino maalin way dadku way soomaleen iyagoo sooma baa timaadeen roobdoon baa jirtay ilaahay baa la bariyey ilaahayna wuu aqbalay oo meelo badan waxbaa ka daadaay laakiin aan isu turno oon isu naxariisanno oo aan ka shaqayno si guud dadkeenna inaan si wada jira wixii aan kaalmo geysan karnay aan u geysano aad iyo aad baad u mahadsantihiin